السلام عليكم أحبابي ميل وبأجوبتان وإذا سلامي كسول بدا جنال كيغا دكتورة سجيا تضباط كأوهرية أوركا أما ويكا أوهرية أوركا يلان كرته بينيدا هذا وحارنا إنا سوق بنو أوركا هويد يلان يسو waxyaaba ay kala kulmayso waxyaaba loo baahan yahay in ay ogaato insha Allah biidmilaahi kariim hadii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar hadii aad ku cusbayna like kare oo si share kare asxaabtaada hadaynu ku bilowno ujeedooyinka looga baahan yahay hooyada in ay ogaato waxa kamid ah koow in aan wada fahanno maxaa uurka ka hor dhaca oo in ay hooyadu markaas ay fahansan tahay uurka ka hor waxyaabaha dhici kara labo in ay hooyadu ogaato xilliga bilaad iyo qaybihiisa kala duwan ee uurka saddex in la fududeeyo hooyadu xilliga taranka ama uurka ay leedahay ama ay ku jirto afar in aad ogaatid xilliga uurka uu bilaabanayo shan in hooyadu ogaato waqtiga qiyaas ahaan ay u malaynayso in inta maalmood toddobaad ama bil ee hooyadu uur ay tahay leh in hooyadu ay barato waxyaabahan aan u fiicnayn in ay hooyadu ay barato waxyaabaha aan u fiicnayn la iskana ilaalinayo uurka ka hor cashirkeena uurka ku saabsan yahay toddobaadka koowaad ee uusan uurkaba uusan jirin uurka wuxuu ka dhashaa marka ukumaha haweeneyda ay ka yimaadaan ugxanta iyo biyaha ragga ama minada loo yaqaan ay ka yimaadaan xaniiniyaha ay kulmaan oo isku falgalaan haddaba si aan u fahanno ama aad u fahantaan uurka aan yara qeexo qaabka ay ku yimaadaan ama qaabka ay markaasi u falgalaan insha Allah haddii aad ku cusub tahay muuqaalka like kare ama share kare asxaabtaada haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore noo joogtana muuqaalka like kare haddaba aan galno muuqaalkeena maanta haweenka menstruation periodka gabdhuhu marka ay qaangaaraanba ama qaangaadho gabartu waxa u bilowda menstruation cycle ama menstruational period ama caadada ayaa u bilaabata nidaamin waxayna markaasi door weyn ka qaadanaysaa ama ay tilmaamaysaaba in markaasi haweeneyda ama gabadhaasi ay diyaar u tahay in ay uur ay qaado ama ay yeelato uur ama ay caruur ku qaadi karto caloosheeda ama minkeedaba haddaba xilli bilaadku waa 28 maalmood oo u qaybsama wajiga koowaad ee loo yaqaano laakiin haweenka inta badan waxay la socdaan hal heer oo ah caadada ama menstruation cycle-ka waxayna kala yihiin koow heerka caadada menstruation phase maalinka koowaad ilaa iyo maalinka shanaad ee maalinta koowaad ee aad isku aragto dhiigga caadada waa maalinta uu bilaabanayo wareega bilaha ah ee dhiigga wuxuu socon doonaa 4 ilaa iyo 5 maalmood waxaana laga yaabaa in ay haweeneydu u soo socdo ilaa iyo 7 maalmood bil kasta makaanka wuxuu helaa dhacaano u diyaariya in uu helo ama uu haayo kaydiyo uurku jiifta haddii uu uurku jiifta imaan weydo oo uurkii ama fertilizationkii uu dhici waayo nafaqadii iyo makaankii dheecaanadiisii wuxuu u soo saarayaa banaanka dheecaankaas oo soo maraya xubinta taranka ee gabdhaha haddii uurka uu dhacana dheecaanadaas waxay nafaqo u noqonayaan canuga iyo sida ayuu ku joogsadaa dhiigga caadada ama menstruation cycle-ka marka laga soo tago dhiigga ka yimaada xubinta taranka waxay gabadhu sidoo kale isku arkaysaa dhabar xanuun gaar ahaan dhanka hoose naasaha oo barara iyo xanuun ee ka yeesho gabadha oo jeclaata cuntooyin gooni ah xanaaq badan ayay yeelanaysaa caajis badan way yeelanaysaa iyo madax xanuun markaasina way isku arkaysaa markaasina waxaa jira ilmo ayaa markaas samaysan fertilizationka ugu dhacay heerka labaad ama wajiga labaad haddana qeexina hadduu rabbi raali ka noqdo heerka koriinka ukumaha follicular phase maalmaha 5 ilaa 13 marka uu dhiigga istaago maalinta 5 waxaa bilaabanaya wajiga labaad ee xilliga
bileedka ama gabdhaha oo ah koriinka ukumaha ee follicular waxaa la yiraahdaa godad ku yaala ugxan-sidaha ama ovary-ga. godadkaas ay ku jiraan kuna koraan ukumaha. halkii godba follicular-ka waxaa ku jira ama ku jira hal ukun, waxaana halkaasi marba koriinka bilaaba 15 ilaa 20 god ama ukumood. laakiin waxaa kordha oo diyaar naqda ama qaangaara hal ukun. halkaas ukunna ayaana soo baxda maalintii 14aad, waxaana soo qaada tuubooyinka loo yaqaano fallopian tube, waxayna si direct ah u keenaan uterine tubes. halkaas ayay ku kulmaan niinada ama isbeermaha iyo ukunta la soo saaray. kadibna waxaa dhacda fertilization ama isdhexgelid. waxaase dhacda marka qaar in ay weynaadaan ama ay wada koraan 2 ukun, taas oo sababta mataane in ay gabadhu qaado ama ay leedahay uur mataana ah. haddaba mataanaha noocan ah ayaa u badan kuwa aan isku ekayn. sidaa awgeeda 14 maalmood markii la gaaro ama la joogaba maalintii ugu horeysay ee caadada waa maalinta oo ugu wanaagsan ee uu qofku uurka raadinayo uu sameeyo galmo ama sexual heerka ama wajiga saddexaad. heerka ukunta soo saarida ovulation phase waa maalinka 14aad. waa maalinka ee ukunta soo baxayso ama ay soo baxdo, waana kala barka xilliga bileedka ee gabdhaha ay caadada ugu timaado si joogto ah muddo 28 maalmoodba. maalinta 14aad ayaa ah maalinta ay ukuntu soo baxdo. ovulation-ka ama ukunta markay soo baxayso, laakiin hadduu regular uu yahay 28 ka badan ama ka yar maalinta kala barta xilliga adiga kugu yimaado ayaa ah ovulation day-ga ama xilliga ukunta ay soo baxday. ukunta inay ugxamaha ama ovary-ga ka soo baxdo oo ay timaado halka uu falgalka ka dhaco ama fertilization-ka uu ka dhaco, biyaha raggan isbeermaha ay ku kulmayaan timaado, waxay ku qaadanaysaa 24 ilaa 35 saac ayay ku qaadaysaa. isbeermaha kuna waxay halkaas fallopian tubeska kusii nagaanayaan ama ku hayn karaan muddo 3 ilaa 6 maalmood. sidaa awgeeda maalmaha ugu wanaagsan ee qofka uurka raadinayo inuu wax abuurmo waa maalmaha 13aad ilaa 14aad ilaa 15aad. ayaa heerka 3aad. heerka 4aad heerka qanjireysiga maalinta 15aad ilaa maalinta 18aad. maalinta 28 tahay ilaa 15keeda maalmood. maalinta 15aad ilaa maalinta 28aad. maalinta 14aad marka ay ukunta ka soo baxdo halkii ay ka soo baxday oo loo yaqaano godadka ugxanta ku yaala ovarium ayaa waxaa ka samaysmaya qanjirkaas oo waxa uuna soo daayaa hormoon sidoo kale loo yaqaano progesterone oo makaanka ama uterus-ka gaar ahaan halka uu canugu ku dhacayo ama ku dhigayo endometrium-ka oo cunuga ku dhigayo waxaan loo yaqaanaa endometrium ayaa loo yaqaanaa. wuxuuna u sameeyaa nafaqooyin isagoo jilcinaya una diyaarinaya in ay hayso cunuga. laakiin haddii ay kulmi waayaan ukunta iyo biyaha ragga oo fertilization dhici waayo, dheecaankaasi makaanka lagu diyaariyey ayaa soo daadanayo maalinta 29aad. dheecaankaas ayaana loo yaqaanaa menstruation cycle ama dhiigga caadada.
wuxuuna soo marayaa xubinta taranka sidaa ayuuna ku bilaabanayaa wareegga kale ee cusbaa ee dhiigga ama fertilization kale in la isku diyaariyo. Dheecaanka wuxuu istaagayaa canugu ayaa u noqonayo nafaqo. Haddii lacala markaas cunug uu jiro dheecaankaasi lama soo sii daynayo. haddii uu cunug markaas jiriga ama ukuntii iyo spermiyada kulmi waayaan uu dhici waayo fertilization uu dhici waayana waxaa meeshaas ku dhamaanaya ama shaqadiisu ku baaba'aysa dheecaanadii la soo diyaariyay ilmaha nafaqada loogu talagalay inay u noqdaan ama nafaqo ay siiyaan. dheecaankaasna waxaa loo soo saarayaa outside nutrient kadibna wuxuu soo daadanayaa sidii caadada kala dhiigga caadada. marka dhiigga caadada meeshaas ayuu ka imaaday. waxaan galeynaa phase-ka shanaad. haddaba sidee ku ogaan kartaa in aad ku jirto ovulation phase marka ugxanta loo soo daayo ama la soo daayo ama maalmaha ay ugxantu soo baxayso sida soo baxayso taranka ay imaanayso ama ovulation tube-ka ugxantu isku soo diyaarinayso sidee ku ogaan karnaa? haddaba waxaan ku ogaan karnaa ama qaabka aan ku ogaan karnaa ayaa ah sida hore u soo sheegayba maalmaha 13, 14 ilaa 15 maalmahaas markay ku jirto u bilaawday gabdhaha waana waqtiga ugu wanaagsan ee aad uurka yeelan karto ama uur aad qaadi karto. laakiin su-aashu waxa ay tahay sidee lagu ogaan karaa? si aad u ogaadidna sameey waxyaabahan hoos ku qoran. sameey waxyaabahan hoos aan ka sheegi doono ama aan soo tixi doono insha Allah.